السلام عليكم. habeen wanaagsan asxaabta khayr badan baad raajineen dhamaantiinba meel kastoo joogtaan. magacayga qofkan garanay magacayga waxa la Faaduma Naasir Cali. channelkaygana waa Fatuma Resilience. marka ku soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad. khayr badan baad raajinayaa. maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo soonida qofka, waxyaabaha dib u riixa ama waxyaabaha dib u dhiga qofkaas kalsoonidiisa. haddaba waxaan aragnaa inta badan dhalinyar ama dad waaweyn ha noqdaan ama ha noqdaan dad ii sheegay xataa caruuraha yaryarba kasoo bilo qofku intuu yar yahay ilaa iyo intuu kasoo weynaanayo waxyaabaha ama sababaha ku kalifa inuu qofkaasi kalsoonida naftiisa ay dib u dhacdo ama kalsoonida naftiisa u waayo. ilmaha yar way ku dhacdaa, maxay dadka waaweyn way ku dhacdaa, dadka ii sheegay maxay haydeen dhalinyarta ugu badan waliba dadka ii sheegay ay kalsooni darrada ay ku dhacdo, ay naftooda ku kalsoonaan waaye. marka waxa weeyaan dhowr qodob baan ka hadli doonaa, way badan yihiin laakiin waxaan isku dayayaa inaan soo koobo. kalsoonida sideedaba horta waxay ku bilaabantaa inuu qofku awoodihiisa ee gudihiisa ku jira uu aqoonsan yahay inuu ii sheegay waxaas uu ka hortagi karo ama uu qaban karo ama uu samayn karo. laakiin waxa jira waxyaabo badan oo bulshadanu ay ka kow yihiin oo qofka ay sheegay ay kalsoonidiisa dib u celisa oo ina islahayn qofkan waa dhaawacaysa ama qofkan ii sheegay waxba hadalkaagaas inta badan waxa waxyeelo waa hadal. ficilkaba intan qofka lagu sameyn hadalku inuu awood leeyahay oo qofka dhaawici karo waa in isla ogsoonaan. horta dadkeenu waxa way isdhaafiyaan way ilowsiyaan, laakiin ka koobaad haddaan ka hadlo waxa weeyaan markaad wax isku daydina qabatid eed wixii aad aragtid inuu kuu qabsoomi waayey ama aad sidaad rabto kuugu dhici waayey waad ka niyad jabaysaa oo haddana mar labaad aad ku celisay haddana kuu noqon waayo, mar saddexaad aad ku celisay haddana sidaad rabtay kuu noqon weydo. waxaad dareemaysaa naftaas oo dhan iska shakeysaa inaad tahay qof ii sheegay adee aan waxba qaban karin inaad tahay aad naftaada u sheegaysaa. kaasi waa kaas. mid kalena wuu jiraa qofku markuu mar walba naftiisa uu wax xun ka sheego uu is iraahdo waxan ma qaban kartid, qof isku filan ma tihid, qof heer sare gaadhay ma tihid, qof wax qabsan kara ma tihid. kaasina kalsoonida naftiisa qofkaasina dib u riixaya. waxa jirta mid kale oo la yiraahdo dhaleecaynta ama kelmadaha xanuunka badan leh ee qofka ii sheega lagu iraahdo ama familigaaga kugu iraahdaan ama kugu iraahdaan asxaabta ama macallimiinta ama ii sheegay dhalinyarta aad ku dhex jirtid ama carruurta la ciyaaraysid. kelmadaha qofka dhaawaca ama kelmadaha qofka loo adeegsado ee sida kaftanka loo iraahdo qofka kalsoonidiisa ay dib u celisaa. taasina halkaas la garanaan u maleeyaa. mid kale waxa jirta iyadana marka qofka la barbar dhigo qof kale ee la yiraahdo hebel ma arkaysaa hebel saas wax u qabsadaa adiga kale sidan ma qabsatid. qof waliba ilaahay dabeecad gaar u siiyay, si gaar u abuuray. dadku isku wada mid ma aha. dadka walaalaha xitaa walaalaha waxaad arkaysaa waalidiinta qaar is barbar dhigaya odhanaya hebel sanu sameeyay maxaa sanu sameyn weyday ma noqonayso. qof waliba siduu ilaahay u abuuray unbu ahaana waxba kama bedeli kartid. haddaad qofka dhiirigelinaysid oo wax u sheegaysid ahla wa sahla dhiirigeli qofka oo wax u sheeg, laakiin haddii aad hadalkaaga uu wax dhaawacayo iska aamus, waxba ha u sheegin qofkaas. ma garateen? marka waxa kaloo jirta maxay haydaya anigu wallaahi billahi mar walbana iska ilaaliyaa. marmar way jirtaa anoo kaftamiya kelmad iga dhacda laakiin qofka raali noqon ku dhacda. wallaahi ma jecli dadku inay dareemaan yani inaan yani aan kelmadahayga u adeegsanayno qofka dhaawaco. ee bani aadan baan nahay, marmar qaladku naga dhici karaa, laakiin wayna taqaanaysaa qofka ugu tiraa raali noqosa uma jeedin. oo raalidana buurba ku tahay Soomaalida sad u taqaaniinba. raali qofka haduu dhahdo qofka raali noqo ugu dabacsanaado waxa loo arkaa qof liita ama qof muxuu ahaayay jileec. in qof kala dareensiyana maaha inuu behind yahay ama uu liita ama uu dib u socdo wali ya ama horumar uuna sameyn karin qofkaasi. qof waliba waqti buu leeyahay. dadka qaar baa horumarka gaadha iyagoo 40 jira, dadka qaar baa iyagoo 30 jira, dadka qaar baa iyagoo 20 jira. qof waliba waxay ku xiran tahay ii sheegay niyadiisa wuxuu u sheego ama dadaalkiisa. traumada dhaawacyada qarsoon qofka soo gaadhaan ee qofka shucuurtiisa dhaawacyadaasina qofka waxay ka qayb qaataan in ay qofka ay maxay heeday
confidencekiisa ay dib u celiso kalsoonidiisa ay dib u celiso ayay ka qayb qaataan marka Soomaalidu way ilowsiyaan way isdiidiyaan male waxaan trauma la iraahdo iyo muxuu ahaayay shock qofka waxa ku dhaco iyo adu wixii qoseeyo ma aragto qofka dareenkiisa ama shucuurtiisa way isdiidsiisa Soomaalidu ma aqoonsana taas xisaabtooda ma jirto waana waxyaabaha ugu waaweyn ee qofka dhaawacyada markay soo gaaraan meesha ugu horeysa qofka dhibicda ugu horeysa ay ka soo gaadho waxay weeyaan muxuu ahaa traumadaas dhanka shucuurtiisa qofka kaga dhacda waxa hadhay qofku markuu waayo lack of support cid caawisa markuu waayo qofkaasina niyad jab ku dhaca qofkaasoo confidencekiisa hoos buu dhacaa cid garab istaagta markuu waayo cid gacan qabata markuu waayo uu qofkaas uu yool uu leeyahay meel uu gaaro uu u socdo uu waayo meeshaasi qofkaasina uu niyad jab walaalo oo hadduu niyad jabana confidencekiisa hoos u dhacaya hore uma socon karayo markaa qofkaas ilaa ay uu naftiisa soo kabo maxaa ku xiga culturalka dhaqanada dhowr jeer baan ka soo hadlaan malaya iyo maxaa aqoonsiga qofka dhaawacyadaas kaasina muxuu ahaa dhaqanka kala duwan meel aan meeshaada ahayn markaad ku soo kortid ama aad ku soo weynaatidna dhibaato ayay leedahay qofka wax ka qayb qaata kalsoonidiisa marka meel uu tago qofkaasi ee qabiil loo sheegto dhinac kale uu tago ee hadana loo sheegto qabiil kale dhaqankii isku mid noqon way qabiilku isku mid noqon way qofkaas wuxuu dareemayaa inuu liito ama confidencekiisa uu hooseeyo ya oo qeyrkii una la doodi karin ilan Soomaalida qabiil ba ka sheekan meel walba la fadhiisto aniga hebelka kala is iraahdaa waxa kala haray perfectionism qofka isaguna ii sheegay meel aan la gaari karo mustaxiil ahayn samaysta oo maskaxdiisa daaliye kaasina niyad jabka ugu weyn bisku ridaya qofkaasi ya oo disappointment baa ku dhaca qofkaasi niyad jab aad weyn ayaa ku dhaca oo wax aan qeyr caadi ahayn qeyr macquul ahayn buu qofkaasi uu rabaa inuu gaaro markuu qofku ka baqo in la xukumo uu cabsoodo mar walba ii sheegay iraahdo horumar samee ama waxaas dheh dib isku celiyo qofkaasina wuxuu confidencekiisu dib u dhigayaa oo qofka ii sheegay wuu daciifayaa unresolved mistakes markuu qofku mar walba uu guilt u dareemo uu lays dareemo uu ii sheegay uu dareemo inuu dambi ka galay ama caruurtiisa kale ama qof uu de wax ku sameeyo kale mar walba isciil kaambiyo kaasina confidencekiisa qofkaasi dib ayuu u dhacayaa isolation ka xiga qofku inuu mar walba keligii uun ahaado keligii qol ku jiro keligii uun meel u socdo keligii uun meel u fadhiyo dadka ula shaqeynay una la hadlayn ayaa oo dadka dhex galayn waa qof confidencekiisa qofkaasi lunsan qof walibana saamayn laakiin dadka qaar waa sida lack of achievement iska qofku markuu progress uu sameyn waayo uu is arko inuu ii sheegay una awood u lahayn inuu wax badan qaban karo qofkaasina waxa ku dhaca kalsooni darro waxa kale oo jirta marka ii sheegay qofka magacyo loo bixinayo ee dhinaca waliba laga weerarayo maxay heedayaa shucuurtiisa ama lagu sameynayo faquuqid dhinaca qabiilkiisa ama maxay heedayaa kalarkiisa taasina waxay qofka ay ka dhigtaa inuu qofku kalsoonida u waayo financialka iyo life stresska markuu qofku ku dhaco dhinaca maalka ama lacagta uu shaqo hagaagsan waayo qofku uu noloshiisa uu waayo wuxuu ku kabo nolol maalmeedku waayo qofkaasina waxa kalsoonidiisa way luntaa waxa kale oo jirta marka qofka jirkiisa isagana wax laga sheegay ela yiraahdo halkan baad u buurantahay halkan baad u dhuubantahay sidan baad tahay qofka shakligiisa wax laga sheego qofkaasina wuxuu waayaa kalsoonida waayaa ama dhuubno ama buurno sida doontid baa haw luqadda qofka haduu uu luqadda u sax u garanayn ama Soomaaliga u garanayn ama uuna garanayn maxay English ama Arabi aday adu luqadaha dadkeena way isku caayaan way isla yaabaan in la isla yaabana maaha waa qofka kalsoonidiisa dib u celinaysa qofku ma haduu is iraahdo hadal
oo la yiraahdo hadalkii laga daba yiraahdo si faniyad looga toocsado qofku iska badaayaaba luqadii inuu ku hadlo uu aamusaya maxaa marka ii sheegayna ku soo xigata lack of skills qofku haduu waayo xirfado ya una lahayn xirfado uu ku shaqaysto ama una lahayn waxa ku dhaca qofkaas insecurity uu isma aamini kara qofku wuxuu isku fiirsanayaa skills ma haysto aqoon ma haysto maxaan wax ku qabsan karaa maxaan ku shaqatay karaa qofkaas in kalsoonidiisa lunta u niyad jabaya maxaa haray marka qofka la khaayimo iyadana ama ii sheegay qof uu ku kalsoonaa uu been u sheego taasina waa dhibaatooyinka ugu waaweyn ee bulshada haysta waxa adkaanaysa qofkaas inuu naftiisa ku kalsoonaado isagu uu isweydiinayo qofkaas xoranahay maxay ka qaldan ma aniga sidana ana qof hagaagsanahayn ma aniga walwal baa galay qofka marka waxyaabaha qofka emotional laga dhaawaco weeyaan marka la eego waliba waa calaaqaadka iyo ugu badan taasina xiriirada wiil iyo gabadh ka dhaxeeya ama family-ga badii laftirkeeda marmar way jirtaa taasina la isqaayimo inta badan waxa weeyaan waa nin iyo naagta aad ku dhex jirtid ma aragtay environment buuq ku jira mar walba dagaal ku jira mar walba muxuuha buuq aan dhamaanayn qofkaasina wuxuu kalsoonidiisa ayaa yaraata dagaalka faraha badan la buuqa faraha badan la ma fiican unstable environment waa buuq mar walba taagan dagaal mar walba taagan walwal mar walba taagan oo ii sheegay wuxuu dhaliyaa kalsooni daro ama la dareensiiyo inuu qofku qiimo lahayn ama meel u shaqo tag oo si fiican u shaqee oo adigii ii sheegay sida fiican u shaqeynayay laguma abaal marinayo qofka kale la siinayaa qofkaas wuxuu dareemaa confidence-kiisa inuu hooseeyo oo dadka kale mar walba laga ixtiraamayo dadka kale laga qiimeynayo marka adduunyada horta de wax la isku sii daaliyaba maaha laakiin waxa loo baahan yahay qof walba inuu yaqaano qiimihiisa qof walba uu yaqaano kalsoonidiisa siduu ku kabi lahaa ya waxyaabuhu ku adag yahay qofka uu doono wuxuu skills leeyahay naftiisa siduu u soo qaadi karo mar walba uu soo qaado waxan waa adduunyada uma baahna inaad la ciiftid waa inaad aakhirana way ka dambaysaa labadaba saad ugu shaqaysatid wallaahi ya waxaan dadkana lama dhageysto cidna lama dhageysto adduunka aad kaliya waxaad qabsan karaysid qabso adigu isdhis adigu kor isku soo qaad adigu iska difaac wixii raba inay hoos ku dhigaan lama baahna inaad halka ka calaacashida oo isniyad jabisid muraadinta hor istaagto inaad tiraahdid ya maxay ka qaldan maxaan hagaajiyaa maxaan saxaa ya sideen wax ku hagaajin karaa waa inaad intaa isweydiisid haddii kale kalsoonidaad intay hoos u dhacdo ayaad ku dhamaysanaysaa noloshaba tv hor fadhi mobilka scroll gare ya cidna ha la hadlin keligaa ahow shaqada yara tag soo noqo bis anigu waxaan dadka diidan in kalsoonidooda lagu ciyaaro kalsoonidooda dib loo dhigo emotionkooda lagu ciyaaro weligeena waan kasoo horjeeda iminkana waan kasoo horjeedaa nolosheeda intaan ka dhimanayo saamanu socon doona insha allah idinkana waxaan idinka rajaynayaa inaad dad adag noqotaan kalsoonidiina ilaashataan wixii idin dhibayo dhan had iska riixdaan kor isku soo qaadaan ya waxaan waa adduunya waa idin sheegay adduunyadana haddii aad dagaalami weydid ya naftaada la dagaalami weydid oo wixii jilicsan oo dhan had u diidid horumar waad gaaraysaa waatan iska dhaadhiciya anigu qofna hana u ogolaan inuu emotionkaaga ku ciyaaro feelingkaaga ku ciyaaro maskaxdaada ku ciyaaro jirkaaga ku ciyaaro sidaa waynoo soo taagnaatid ood muraadada isku eegtid tiraahdid aniga maaha ta hoos u dhacaysa kor baan u kacayaa waa sii socda anigu cid i istaajin karta ma jirto intaan noolahay nafta igu jirto ilaahay oo dee qadar kale igu keena mooyaane laakiin waa inaad naftaada la dagaalantid naftan waa bila adabad marmar waxay ku odhanaysaa khalaas adduunkan waad ka daashay ka dhexbax waa beenteed naftaada waa inaad muraadinta hor istaagtid la hadashida tiraahdid waa inaan dhaqaaqo ma ogoli in aan dib u dhaco ma ogoli inaan ii sheeg in yar oo aan de qof kelmad igu yiri han maanta dhan la galgasho halka aan jiifo walaalayaalow hadalkeenu idinku badinine naftiina kor soo qaada
confidence keeda ilaaliya waxaan qofna ha u ogolaan inuu in yar dib kuu riixo inaad hore u socotid mooyaane maca salaama khayr badan baan idin rajaynayaa habeen wanaagsan hana iloobina channelkayga subscribe dhaha share gareeya comment fiican iga taga khayr badan baan idin rajaynaya dhammaantiin waa idinkaas website-kaygana ha iloobina buugtayda fatumaresilience.com website-ka gala buugta ii sheegay intaanad iibsan ka hor sambalka eego buugga sambalkiisu ku jiraa akhriso waa free download garayso muxuu ahaa comment fiican iga taga fadlan commentku waa muhiim wuxuu iga caawinayaa waxyaabo badan fadlan commentkiinaas sambalka akhrista buuggaad jeceshahay markaa iibso 4 buugan qoray ka aad isleedahay u baahan tahay maanta iibso aad baad mahadsantihiin habeen wanaagsan bye bye